asalaamu calaykum dhegaystayaal waa qayb kale oo ka mid a barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu ugu magac darnay muuqaalka soomaalida maanta waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey aamin media limited waxaana idinla socodsiinaya cabdulaahi kulmiye oo jooga magaalada muqdisho. waa qaybtii 8aad ee barnaamijyada muuqaalka soomaalida maanta waxaana marti noogu ah maxamuud cumar cadow oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. hadda maanta ay dawladaha dilisnala ay leeyihiin qaxootiga Soomaaliya naga baxo qaxootigaas maxaa sababay dhalinyarada Soomaaliyeed sababta been la sheegi maayo iyo rag ku qaraabanay marka waxaan leeyahay dadkooda ha raacaano dalkooda ha dhistaano kuwa qurbaha jooga intay soo noqdaan wadankooda ha dhistaano waalidiintii ay ka maqnaan intaasoo sanaha u soo noqdaan maxaa kuugu muruga badnaa in la yiraahdo gabar baa halkan lagu kufsaday gabar baa la faraxumeeyay maxay ahaydeen baa halkan lagu dilay oo maartay qof islaam ah oo amba masaajidka soo baxay amba maartay reer hebel loo dilayo waxa qoysu weexo wala kale u olole waxa xola urso isticmaalka garabsi qadarkaas yaree hordhac kadib ayaa idinku dhaafaya cabdulaahi kulmiye oo barnaamijka idinla socodsiiya waa shariif cali shariif oo idin leh dhegaysi wacan. dhegaystayaal waa mid ka mid ah barnaamijyada muuqaalka soomaalida maanta waxaana inoo suurto gashay in aan ku waraysanno mid ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho bal marka hore aan weydiino magaciisa iyo 20kii sano ee u dambeeyay halka uu ku sugnaa. bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxaa la yiraahdaa maxamuud cumar cadow 20ka sano ee burburka waxaan ku noolay magaalada Muqdisho. waa gartay marka shaqadaada muddadaas 20ka sano ah ee aad Soomaaliya ku sugnayd maxaa ka shaqeynaysaa oo aad ilaa iyo hadda haysaa? aniga waxaan horta baagamuudaan iska ahay laakiin waxaa jira wax hadda dadku u badan yahay Muqdisho jooga amba Soomaaliya oo dhan dilaalan iska ahay aniga dilaaleyda qolada la yiraahdo oo dhulka gadaan inta oo waliba nadiifka aniga dad waxa jiraan oo qashin gada laakiin aniga waxa soo ma jiro inta wanaaga aan u naqaano ayaan anigu ka ganacsan jirnay amba gadi jirnay waxa weeye marka dhulka hadii aad ogtahaba dilaal hadaad maqasho wuxuu gadaa wixii loo keeno wuxuuna wax ka gadaa nin raba waxaas oo macnaha dhulkaas isaguna raba marka sidaas darteed waa xirfad macnaha hadda Soomaalida baagamuudada inta badan ay u badan tahay in ay baarka timaada ka sheekaystaan kabacdi warheed ee dhulkaas baaci ay soo dad hebelow adiga maartay niyo guru beecan raba ma haysa waxyaabo noocaas oo maartay Soomaalida hadda u badan tahay marka dhulkaas ayaan ka ganaa maartay aniga aan dilaal ka ahay intii aan ku dhex jirana wixii Ilaahay iga calfo kali jiray burburkii kadib waxyaabo badan ayaan aragnay oo qaar ay bini'aadanimada aad uga fog yihiin oo maaragtay aad moodo in aysan diin muslimiin gaala intaba iyan qabin waa dhaqamo fool xun waxaa la soo maray kufsiyo waxaa la soo maray dil macna la'aan waxaa la soo maray dadka in kooxba meel maaragtay lagu kala xirto ee la yiraahdo reer hebel baan hajuumay aan iska dhicino dadka si oo macnaha loo kasbado dhalinyarada aan macnaha weli fahmin qaabka loo socdo waxaa la yiri muusantahay dameerka ninka wada muhu asugu biyo wada waa heliya laakiin dameerku ma heliyo meesha oo maaragtay biyaha loo wado marka dadka dhalinyarada markaas lagu qaraabanaya ma yaqaaniin meesha ay u socdaan dadkan markaas ku programinaya barnaamijkaas iyo waxay hiigsanayaan marka dhalinyarada waa tii lagu wacyi geli jiray warheed xaabaha naqanina lagu holciyo dadka Soomaaliyeed oo ummadda maaragtay ku wada nool halkaas marka sidaas ayaan maaragtay ku soo jirnay 20kii sano kadibna maaragtay waxyaabo badan oo isbedel ayaan soo marnay. waa gartay marka muddadaas dhibaatadaas aad aragtay sidee baad ugu qancisay naftaada oo aad u arkaysay adiga oo naftaada ugu qancisay inaad la noolaato dhibaatadaas? waa runta horta naftaada waa inaad la tashataa haddii aad aragto waxyaabo ku dhibaato geliyana
qaabkii aad maaragtay inaad uga fikirto qaabkii maaragtay aad laftaadu maaragtay isu maaray lahayd awalan aniga waxaa niyaddeyda ka go'aansaday xadiid waxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man ra'aa munkaran falyuqayiru biyadihi waman lam yastadic fabilisaanihi waman lam yastadic fabiqalbihi ulaa'ika adcafu liimaan macnaha haddii aad aragto munkar ku suuli gacantada ukaadi waa maxay munkar munkar waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha aan islaamka diinta islaamkana ugu wanaagsanayn shacbiyadda qowmiyadda markaas uun adlanooshana aan ku wanaagsanayn mujtamaca meeshaas degana dhibaaya aad iyo aadna uga xun macnaha uga baxsan dhaqamada muslimiinta amba dhaqamada islaamka amba dhaqamada qowmiyadaha markaas ku nool waddankan koonka aan joogno ilaahay abuuray marka sidaas darteed haddii aad munkar aragto gacanta ku suuli haddaad macnaha ku suuli weyso carabka kala hadal oo macnaha war waxaan iska dhaaf leh ninkii hadduu qaldan yahay haddii aad intaas awoodi weyso qalbiga ka nac iimaanka oo laalaabka intaas waaye saasaan maaragtay aan maaragtay kusoo jirnay marka gacanta ku suuli waa gacanta ku baabi'i haa sidaas waaye waa gartay marka ma islahayd waa laga baxayaa oo in laga baxaya ma aaminsanayd arrintaas naxariista ilaahay lagama quuso mar walba waxaa loo baahan yahay in aad naxariis alla ka rajayso alaa ina nasrallaahi qariibun ilaahay baa yidhi nasrigu waa dhow yahay waa qariib mar walba waxaad marka ogaa doontaa haddii aad shiddo la kulanto ina maca alcusri yusran haddii culays aad aragto fudayd ayaa ka daba mara marka mar walba rajadaydu waxay ahaaday amba niyadayda wanaaggeedu in aan muxuu ahay aan ka bixi doono arrinta aan ku jirno oo tiiha iyo iska dabawriga ah waa gartay marka maxamuud muddadaas maxaa kuugu yaab badnaa ama kuugu murugo badnaa ama kuugu farax badnaa ee aad la kulantay adoo ii kala qaaday 1 waxa kuugu yaab badnaa 2 waxa kuugu murugo badnaa 3 waxa kuugu farxadda badnaa ee aad la kulantay 20kii sano ee la soo dhaafay horta waxaa igu yaab badneeday in ay waddankii markii dowladdii ka burburtay oo maxamed siyaad barre xilligii xukuumaddii hore wixii ka dambeeyey waxaa igu yaab badneeday in dadkii labo ay isugu dirmaan oo qabiil ay maaragtay maxay aheeday u culuubaan si maxay aheeday iyaan isugu imaanin dadkana ay maaragtay dhexdoora waxaa ku jira dad markaas ka faa'iidaysto oo dilaalin aad mooddo inay dhiigga ka dilaal yihiin sababtoo ah waxay samayn jireen dadka iskala ququbayeen haddii maanta la isuto xoolaha la kala dhacay gaadiidkoo kaleeto raashinkoo kaleeto marka intaas ayaa horta iigu yaa badneeday waxaa iigu murugo badneeday in la yidhaahdo gabar baa halkan lagu kufsaday gabar baa la faraxumeeyey maxay ahayd nin baa halkan lagu dilay oo maaragtay qof islaam ahoo amba masaajidka soo baxay amba maaragtay reer hebel loo dilaayo iyada oon waxay ka hadlaysa aysan jirin intaasuna waa iigu murugo badneeday waxyaabaha iigu farax badnayna waxaa ka mid ahayd haddii intaas inta la soo maray ilaahay uu haddana dadkii qalbigiisa xoogaa isu soo dumay ee aad mooddo in ay ka baxeen wixii hore ay ku jireen maskaxdooda intii badneed laga sifeeyey ee ay noqdeen dad isu tanasulaya ee miis wada fadhiistay ee ilaahay uu garansiiyey dowladda hadda dhisanee kumeelgaarka macnaha looga baxay dowladdii ka horrayso kumeelgaarka ahayd in ay odayaasha isu soo xusho dadkii mas-uuliyiintii markaas jooga ay odayaasha isu soo xulaan soomaaliyeed wada fadhiistaan ay qabsadaan guddi muxuu ahaa ka shaqeeya in soomaaliya ay hal miis wada fadhiisato baarlamaan xur ah ay doorato xilliga hadda lagu jiro taasna waa igu farxad badneed haweenku waxa ay ka mid yihiin bulshada waxaad iga warantaa haweenka Soomaaliyeed doorka ay ayagu leeyihiin oo dhinaca siyaasadda ay ka leeyihiin bismillaah doorka haweenka Soomaaliyeed wax iska macnaha waxa waaye muuqda horta Soomaalidu 100% waa islaam la yiraahdaa qofka mar haddii islaam tahay in la xurmeeyo ay aad maaragtay xaq ugu leedahay sidaas darteed qof dumara sideedaba in lagu xadgudbo waa khalad marka sidaas darteed haweenku wayna dhaleen way noo dhaleen way noo dhaxeen annagaa dhalnay haddii maanta la yidhaha gabadhaadiyaa meeshaan maaragtay lagu aflagaadiyey wax kale iska daayey
jiifta dhan baa ku xanuunaysa ninkaas in aad disho aad kaa soo dhawaahaysa marka sidaas waxaa loo baahan yahay in ilaahay baa horta keeni kara nasri wanaagsan laakiin haweenka in la xaq dhowro oo birimogeydada dadka ugu sii liita maadaama ay yihiin haweenka iyo carruurta in aad iyo aad loo xaq dhowro ayay leeyihiin barkee waa meesha ugu jiracsan bilo-aadmiga maanta qoomkan ku nool sidaas darteed haddana doorka ay ku leeyihiin siyaasadda hadba waddanku bal waxaad iga warantaa waa gartay doorka siyaasadda ay haweenka ku leeyihiin bal ka waran doorka siyaasadda ay haweenka ku leeyihiin caalamka hadda horumar ayaa ka jira waxaa loo baahan yahay haweenka sida haddaba maaragtay aada maqlaysay dowladdan haatan noo dhisan in haweenka xuquuqdooda laga siiyo ay maaragtay ka qayb qaataan barkee haddii 22 sano ragga baagamuday ahan haweenka ahaya been la sheegi maayo reeraha maaragtay Soomaaliyeed hadda inta badan amba dibadda ha jiraano amba dalka ha ka shaqeeyano subaxdii waxaad arkaysaa ragga socdo oo shaqeynaya oo shaqada u socda iyo haweenka ayaa badnay marka sidaas darteed in xaq dora laga siiyo xagga maaragtay siyaasadana waajib ay u leeyihiin saasan qaba aniga waa gartay sidee baad u aragtaa in dumarka waxad gudub ah lagu sameeyo ma la kulantay cid dumar ah ama qof dumar ah oo lagu xadgudbay ama xasad dareentay wallaahi horta dumarka in lagu xadgudbo waa dhibaato waana ka hadlay waa la kulmay oo aniga hadda meel aan deganahay xilli maqriba ayaa gabar caana loo diray ayaa waxaa lidhi meesha ayaa lagu fuulay sidaas darteed meeshiyaan ku soo ordnay markaan ku soo ordnay gabadhiyo taalaan ugu nimaday dadkina ay ka kala ordeen dhiigna uu ka socdo dhibaatadaas ayaan la soo kulannay kabacdi dadkiina ma aanaan arag qoftina waa dhibaataysantahay isbitaal baan geynay waa daaweynay ilaa haddana lama yaqaan cid saas yeeshay marka xagee buu dhiigga ku socday xilligaas kulley makaanku ku socday qoftaas waan dhibaato aad loo geystay warqadaheedu waa yaalliin xataa weli diris bayna marka maxaa dareentay xilligaas adiga maadaama qof waxgarada aad tahay maxaa dareentay wallaahi murugo aad iyo aad u badan ayaan dareemay oo maaragtay xoogaa qalbigaygu aad maaragtay u walaacay sababtoo aha haddii maantay dumarkii Soomaaliyeed masaakiinta ahay weliba gabar yaray ahaydoo soo baxaysa haddeer oo 12 sano jirta marka waxaa waaye aad iyo aad ayaa murugo ii gashay foolxumada lagula kacay iyo bili-aadnimada ka baxsan oo lagula kacayo oo annaan wax ka qaban karin oo markaas aanan u jeedin haddii aan markaas arkayo xataa walow uu qoro wata xataa aniga waa isku duubi lahay xataa aanba ku dhintay marka cabdullaahi sidaas ayaa maaragtay uga xumaaday dhalinyarada waxa la yiraahdaa waa jil cusub kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen waxyaabihii dhacay ka war dhalinyaradu dhowr qaybood ayaa loo kala qaadayaa qaar waxay ahaayeen dad oo tacliin barta dugsiyo quraan dhigta arday wanaagsan ah waalidkood u shaqeeya qaarna waxay ahaayeen qaar dhibaatada waddanka ka dhacday dadka macnaha looga dhigay remote controlka oo lagu shaqaysahay ay ahaayeen marka haddii aan kala qaado qolada wanaaggoodii weli wataan hawshaas qaybta xumaantana xumaan weligeedba waa arki jirta bili-aadam meel uu jooga lagama waayo waxaan leeyahay marka dhalinyarada qaybta xumaanta samaynayaan ha ka waantoobaano dadkoora wanaagga iyo walaaltinimada ha ku raacaano waxbarasho ha aadaano dhibaatada ha iska dhaafaano muxuu ahay qorga ha iska dhigaano maxay ahayd isbaarayaysan tegin ha fiirshaano dadka kaleete ee iskoolaadka amba jaamacadaha dhigta wanaagga ay ku socdaan iyo quruxda ay qabaan ha fiirshaano iyaga ha isfiirshaano dadkaasna ha fiirshaano marka in waxbarashadu qaali tahay dadka in la nabadgeliya ay qaali tahay sidaas ha u arkaan leeyahay qofta wanaagga waa ka muuqdaa qofta wanaagsan oo maaragtay ahlu salaadka oo ahlu cilmiga oo waxbarashada u socota oo libiskeeda iyo nin maanta qor haystee wadada taagan isma leh marka ka waantoobaana leeyahay qorga ha dhigaano qalin ka qaataan waa gartay mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed waa maxay doorka ay ka qaadan karaan oo aad isleedahay way ku kaalmeyn karaan wax walba isbedel ah isbedelka waa ogsan tahay sideedaba isbedelka Soomaaliya ka dhacay ee ugu horeeyay haddii aad taariikhda waa la socotiin raggii la suxufiyiinta dhalinyaro Soomaaliyeed oo 9 nin ayaa ka qayb qaadatay
9 milyan oo Soomaali oo dhalinyaro joogta marka maanta mid walba hadii uu maaragtay 9kaas nin matilo waxaan moodaa Soomaaliya in ay xornimo iyo horumar iyo wanaag ay gaari lahayd marka dhalinyarada waxaan maaragtay kula dardaarmaya in ay ka qayb qaataan horumarinta wadankooda dadkooda dalkooda diintooda ana ay ku dadaalaan in aan ka baxno arrimaha aan maaragtay maanta ku jirno iyo wixii ka horeeyay laguna cibro qaato xumaayaalkii la soo maray oo dhibaatada dadka kala geeyay oo dadka hadda maanta ay dawladaha dilsanaha ay leeyihiin qaxootiga Soomaaliya naga baxo qaxootigaas maxaa sababay dhalinyarada Soomaaliyeed sababta been la sheegi maayo iyo rag ku qaraabanay marka waxaan leeyahay dadkooda ha raacaano dalkooda ha dhistaano kuwa qurbaha jooga intay soo noqdaan wadankooda ha dhistaano waalidiintii ay ka maqnaan intaasoo sanaha u soo noqdaan ilmahooda waxbarashadoodii u diyaara hadda dawladda waxay ballan qaaday in ay waxbarasho iyo maaragtay caafimaad lacag la'aan wax walba lagu helayo marka waxaan leenahay qaxootiga maanta xeryaha ku jira dadkii sababay dhalinyaradii sababtay qaarkood way daba kaceen waxaa la yidhi sacwaabaha weyne cungaha geedka uga baxsha asna ka daba baxa kabacdi markay baxshan iyaga ka daba baxay ilaa meeli joogaan ma leh marka waxaan leeyahay ha soo noqdaano ha tooba keenaano wadankooda ka shaqaystaano ha issaamaxaano waalidkii iyo walaalkii ay meesha ugu tageen ha u yimaadiino hana ka qayb qaataano mustaqbalka Soomaaliya ee wanaagga maanta lagu doonayo waa gartay waxa kale oo aad bal iiga warantaa weli maadaama aad Muqdisho ku sugan tahay ma jirtaa dhalinyaro aad isleedahay wacyigii iyo horumarkii iyo midnimadii ma aysan fahmin oo waxay ku jiraan xilligii dawlad la'aanta wallahi horta dadka waxaad moodaa intii hore inuu wax badan iska bedelin oo ka rooyahay xoogaa haddana way jiraan waxa jira lama dabaal beelin weli lama dabaal beelin dabaal waxaa la yidhaha ninkaan dantiisa ogeynin waxa uu ku sugan yahay aan ogeyn inay wanaag yihiin inay xumaan yihiin bagaleen warnimaa dad dilay nimuu dilay markaasaa ninkaan maxaa ku dishay ma aqaano yidhi waxaan ku dilay marka taasoo kaleeto waxaad moodaa in maaragtay uu u baahan yahay wax badan waxaan leeyahay marka isbedel badan ayaa jira magaalada Muqdisho haddaan kaaga soo qaado iyo gobolada ku teedsan waxaa Soomaaliya oo dhanba ka dhig waxaad moodaa dhalinyaradu fahamkeedu inuu inta hore aad iyo aad boqolkiiba maaragtay 60 amba 70 oo kasoo fiicnaanayo waxaan leenahay inta dhimanna Allah u dhameystiro waxaa barnaamijkan kuu soo diyaariyey Amin Media Limited waa gartay bal waxaad iga warantaa odayaasha dhaqanka qaybta ay ka qaateen Soomaalidan cusub maanta jirta wallahi Soomaalida horta waa cusub tahay hadii loo fiirsho qaabka hadda maanta ay shaqadu ku socoto hadii la fiirshana Soomaaliya ma cusbo waxay kamid tahay wadamada maaragtay soo jireenkoodu in badan oo maaragtay taagnay hasa ahaatee Soomaalida cusub maadaama la leeyahay Soomaalida hadda heshaynay cawda oo yar oo dawladnimada asaas u qaata aniga sidaas darteed odayaasha dhaqanka ee Soomaaliyeed waxay ka qaateen door muhiim ah oo maaragtay aad moodo inuu yahay kii laga rabay waxaad og tahay arrintan hadda ka hadlayo oo odayaasha isugu yimid 135 oday kaleeto waxa waaye wax loo baahnay waa hawl muhiim ah inta dhiman cuqaasha ah waxgaradka ah caqliga u saaxiibka ahna waxaan leeyahay sidii dadkaasoo kale odayaasha ka horeeyay ku daydaano Soomaalida maantay in ay barqabtaan leeyihiin inay barakiciyaan ma leeyahay ha barqabtaan leh waa gartay waxa jira dad odayaasha dhaqanka doorkooda ku colaadinaya oo ayagu wax isbedel ma aysan keenin dhaxaya kuwaas ka waran wallahi isbedelka horta Allah keena maana iyagu ma keeni karaan laakiin sabab uun bay noqdeen sababtaas ay u noqdeen wax wanaagana hadii aad qofkii jidiisa waa looga daydaa waxayna leedahay ajirka ay ka heshaa marka waxaan leeyahay odayaashaas wanaag ay jideen in looga dayday maaragtay leeyihiin in la dhaliilo mala saasaan aniga maaragtay dhihlaay waa gartay bal aragtidaada waxaad iga hadashaa dib u heshiisiinta cadaaladda ku dhisan sida loo dhameystiri karo guud ahaanba dib u heshiisiinta dalka Soomaaliya ee cadaaladda ah ayadoo cadaaladba ku dhisan sidee qaabkii loo dhameystiri karaa haddii aan taas xogaa ka soo qaato waxaa loo dhameystiri karaa aan leeyahay Soomaaliya oo dhibka haya ogaatay
in ay maaragtay isu timaado intii dhinaaday intii hore waaba is aragtay marka si cadaalada oon qabiil iyo qurun iyo qashin lahaynin iyo xaqdinimo iyo xaasidnimo ay inta hal miis isugu yimaadiin ka shaqeeyaan danta iyo danta dalka iyo dadka iyo diinta Soomaaliya meel ay uga soo wada jeestaan wixii horena ay iska qubaan wixii wanaagan ay qaataan saasaan maaragtay leh waa garta marka yaa ka shaqeynaya qaabkeesa looga shaqeynaya dib u heshiisiintaas cadaaladda ku dhisan waxaa ka shaqeynaya inta ilaahay garansiiyo Allah subxaanahu wa ta'ala uu u qoro in ay maaragtay arrintaas ka qayb galaan hase ahaatee waxaa laga rabaa kow dadka culamaa u diinka ah dadka aqoon-yahanada ah dadka maaragtay cuqaasha ah ee duubabka oday dhaqameedyada xildhibaanada dawladda maaragtay ka wakiilka ah xukuumadda markaas iyadana ay dhiseen baarlamaanku wixii intaas saas ayay maaragtay barkee dawladda waxaad moodaa dawlad haddii lagu sheego waa shacbiga dawladdu marka inta la magacaabay ee meesha joogtana shacabka shaqaalihii u shaqeeyahaya waaye marka shaqaalihii loo shaqaynayey in maaragtay shaqada looga dheelo aniga ma qabo marka in loo wanaajiyaan qaba ma fahanta shaqaalahana shaqaale la maaragtay asugu laftiisa dantiisa og inuu noqdo loo baahan yahay waa dadka ummadda Soomaaliyeed marka saasaan maaragtay aniga aan dhihi lahay sidee baa hadda Soomaalida heerka ay maanta joogto ama halka ay Soomaalidu maanta joogto qaabkee baa horey looga sii socon karaa in horumar lagu gaaro horumarka waxaa lagu gaari karaa haddii wixii Allah subxaanahu wa ta'ala uu idmo sidiisa dhanba tan labaad waxaa horumar lagu gaari karaa in dawladda dhisan la kaabo wanaag lagu taageero Soomaaliya in badan ayay burbursaneeday dhulka ayay taalaa maanta maadaama dawlad curduna ay ka dhalatay haddana lagu heer kuma istaagi karto si ay u hanato dawladnimadii iyo horumarkii waa gartay maxaad isleedahay muddooyinkii u dambeeyey 20 sano markii laga soo gudbay muddooyinkii u dambeeyey maxaad isleedahay way qabsoomeen oo Soomaaliya u suurto galay haddii maaragtay ay maantay dawlad ay heshay waxaan leeyahay Soomaaliya wax badan ayaa u qabsoomay waa inay ka faa'iideysataa iyadan dawlado ku meel gaar ah badan ayaa soo maray maantay dawlad aan ku meel gaar ahayn oo dawlad international ayaa u dhisan caalamkuna uu aqoonsan yahay caalamkuna uu la dhacay leh golo wasiiro oo tiro yar oo tayo badan oo aqoon-yahano ah oo professor ah waxaan marka leenahay aqoontii inay talisay aan rabnay ayaa maanta taagan marka sidaas darteed Soomaaliya waxay ku talaabsatay arrin oo maaragtay wanaagiira leh isfaham leh maanta adduunka ay kula socon karto waana meeshii maaragtay aan dhihi lahayn Soomaaliya maanta waa ka baxday dhibaatada ay ku jirtay fikir ahaan ma haysaa wax aad isleedahay hadda ayaa loo baahan yahay in la qabto oo aan weli suurtagelin bal aragtidaada maxaan suurtagelin loo baahan yahay in hadda la qabto waxyaabo badan ayaa jira oo loo baahan yahay hadda in la qabto maadaama dawladda ay dhalatay adeegii bulshado dhan waxba kama jiraan waxba ma yaalin biyihiyaan lahaynin caafimaadaan lahaynin isbitaal waxaan lahaynin isguulaad waxaan lahaynin korontadii waxaan lahaynin muxuu ahay dhismadii amnigii waxaan lahaynin muxuu ahay wixii la dhihi jiray muxuu ahay isdhexgalkii bulshada ah weli kala maaragtay sidii laga raba aan haynin waxaan lahaynin wadooyinkiya burbursan waxaa burbursan meelihii dhammeed oo dawladda hadda maaragtay la magacaabay ay ku shaqay lahayd oo dhan oo maaragtay maanta aad moodaba in ay xafiisyadii oo maaragtay ay ku shaqay lahaayeenba iyaan meesha ku aalin waxyaabahaas oo dhan marka in laga saacidaan adduunka ayaa maaragtay looga baahan inay dawladda ka saacidaan waa gartay marka adduunka sikow Soomaalidu qaabkay howlahaas aad hadda xustay ay isaga saacidi karaan laftooda waxay isaga saacidi karaan qofta markii ay tabareertay ila istaajiyo waa socon kartaa lagu heeyo socon kartaa muslimiinta waxay leedahay beero waxay leedahay bad waxay leedahay xoolo waxay leedahay wax walba intaasoo dhan in ay maaragtay ka shaqaystaan oo Soomaalida lafteedu wax adduunka laga helay siin bari waxba ma lagu dhiifaayay dadka qaxootiga hadda xariyaha ku nool oo kaleeto oo amba Muqdisho ha noqoto amba
dowladaha diriska oo nala diriska oo kale taxariyaha maaragtay ku yaal waddanka horba ha naqato in ay inta soo baxaan oo waddankooda yimaadiin hooyo oo shaqaystaan nin walba inuu wax heli karo uu tijaabiyo bal horta oo kii beer fala jira beer fasho kii xoolo maaragtay raac jira xoolihiisa oo maaragtay dhaqaalaysto oo macnaha beerto kii badda ka shaqaysan jira baddiisa ka shaqayso dhaqaalihii dowladda heli laheedna halkaasay ka soo baxayaan saasaan u qataan waa gartay qurba joogta door intee leeg baa ayay horumarka Soomaaliya ay u geysan karaan qurba joogta waxay ka geysan karaan waddanka hore inay camiraan oo waddan shisheeye markay camir lahayn waddanka hore ay camiraan maalan hadda Kenya iyo maaragtay Afrikaankan oo hadda nagu teesan oo South Africa iyo waxa geyso kaleeto hadda Afrika soo qaado Soomaaliya jirta dhowr milyan oo maaragtay Soomaaliya waay dhaqaalaha iyo dukaamanka iyo wax walba oo waddankaas ay ku haayaan amba guryaha ay ka gateen amba ka dhisteen inay waddankooda maadaama uu dowlad ka dhalatay nabadu ay ka jirto yimaadiin ay macnaha maalgelintii ay dad shisheeye ay maalgelin lahayn waddankooda maalgeliyaan dhaqaala macnaha uga soo saartaan amnigiisa ka shaqeeyaan saasaan kula dardarmaa Soomaalida joogta iyagana qurbaha waddankooda dib u dhiskiisana ay ka qayb qaataan waa gartay ugu dambeyntii wax rajo ah oo adiga kuu muuqda ma jirtaa aad iyo aad rajo iigu muuqda iftiin ayaa ii muuqda Soomaalidii hore inay maaragtay ka bedelantahay ayaad moodaa ilaahay waxaan leeyahay ha isu soo daba dhigo inta wanaag oo kaleetana qalbigoodana Allah maaragtay isu soo dumo wixii maaragtay xumaana siday uga baxday intay ku jirtaan Allah ka reema leenahay intaysa ku jirina khayrka ay maaragtay rajeen Allah siyaadiyo aniga waxaan kamid ah dadka khayrka rajeena in Soomaaliya maanta ay qorax ay u soo baxday iftiin cusub waa cusub oo bariyay maadaama hadda xilligu meelgaarkan laga baxay dawladna ay u dhisan tahay oo wanaag hadda intay wado aan u jeedno inay wanaag tahay iyadana waxaan leenahay inta dambo ragga mas'uuliyiinta ee xilka la saaray si xilkasnimo ah hufnaan ah ha u gutaano ha fiirshaano dadkooda dayacan ee meel walba maalin walba la leeyahay ha iga guuraano ma rabo balaayadooda ha fiirshaano dadkooda dayacan ee ku jira magaalada Muqdisho ee guryihii dadkii ka qaxay xayooyinkaas ku jiray iyagana qaxootinimo maanta ugu jira marka waxaan leeyahay Soomaaliya waaba u bariyay waagaas ha ku shaqaysato u bariyay iftiinkaas oo maaragtay ilayska ay heshay ha ku shaqaysato oo yijiifan saasan leeyahay aad baad u mahadsan tahay barnaamijka muuqaalka Soomaalida maanta oo aan ku soo qaadanay waraysi aanu la yeelanay Maxamuud Cumar oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho waliba ku sugnaa 20 sano ee u dambeysay ayuu ahaa waraysigaasi inta aan markale hawada ku kulmayno waa Cabdullaahi Kulmiye oo idin leh nabadgelyo warfahina mina wa astan wadaninimu wa iskashikowanimo wa adeeg bulsho sugan amniya